gudoomiyaha gobolka Salel Cabdirasaaq Waaberi Roble uu heliyo taliyaha qaybta booliska gobolka Salel Gaashaanle Cabdiqani Ibrahim Nuur ayaa waxay kormeer shaqo ku tageen deegaano hoos yimaada gobolka Salel sida deegaanka Shacado ceelgaal laanta Maroohda Jiri waxaanu kormeerkani ku taxalluqay ka warhaynta iyo kuurgalida deegaanadaasi waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay dadka deegaanka oo ruuxaayay caleemo qoyan iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin maamulka cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u soo magacaabay gobolka Salel waxaana mas'uuliyiintani u kuurgaleen ayax farabaas ku haya deegaanadaasi kaas oo ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland isla markaana ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha iyo cid kasta ay qusayso sidii ay wax uga qaban lahaayeen ayaxaasi kormeer ku nimi tuuladan Jiri runtii odayaasha duqeyda waan is wada aragnay waxaan saaka arkayay talaalkii oo si fiican uga socda tuulada Jiri anigoo aaminsan wasiirka wasaaradda tacliinta Marwe Zamzam kulli reer Salel shahaadad bay u diyaarinayaan waa wasiiradii ugu horeysay ee meel baadiya iskuul ka dhista kordhisay iskuuladii ka dhisnaa waxaan u maleynayaa oo odayaasha u sheegaya in ay Marwe Zamzam iskuulkan Jirina wixii baahidiisa ay ka qaban doontaan waxaad moodaa intaas u dhaxaysa iyo bankii Riyaad loo yaqaanay oo dhanba koronkoraasna oo haysata meel laga joogsado ma jirto hadda way baad ilaasanaysaa duulitaankii bay ku dhowdahay marka hay'adaha ay khusayso iyo caalamka waxaan leenahay waa laga soo gurmado neef ma goosan karo geed sidaasay xooluhu garka wada taagayaan marka waxaan leenahay tii hore way ka badan tahay tani tii hore laga hadlayay way ka badan tahay waa koronkoradii oo kacaysa weeyaan waxaan leenahay qayladhaanta meel walba la gaarsiiyo hasha cadawga ee dhulka weeraraysa maartii ilaahay horta in maartii naga dul qaado dawladuna yacni kulli dadaal sida barasaad ku sheegay hore ugu dadaashay intan insha Allah waxaan rajaynaynaa in si gurba degdeg oo xagga yacni waliba beeraha wasiirka beeruhu insha Allah ku soo qaadi doono koronkorta sidaa maaha markii ugu horeysay ay dadka deegaanka ka hadlaan ayaxa ku fidaya deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Salel ayaan la diiriyay Cabdilaahi TV-ga qaranka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel.